بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته sida walaaluhu qoondeeyeen darskani wuxuu ku saabsanaan doonaa alcubuudiya ama addoonsiga ilaahay subxaanaه wa tacaala bini aadamku waa addoon u noqdo alcubuudiya eraygu min alcabd aw alcibaada asalka macnihiisu waxa weeyaan adul asalka erayga macnihiisu aslulcibaada ama kelimadda fi luga waa adul ama khuduuc ama isdhuldhig ama hoggaansi waa ku idhaha طariiqun mucabad yacnii jid dhaba laga dhigay ama toobiye laga dhigay waddo la mara oo adinku uu toobiye ka dhigay macnaha halkan looga jeedaana cumuuman waxaynu odhan karnaa waa eray koobsada wax allaaliya wixii alla jeceliya subxaana wa tacaala uu raalli ka yahay hadday hadal tahay hadday camal tahay hadday wax qalbiga dega tahay dhammaantood cibaaday koobsadaa mas'alada tani waa mas'alo runtii qofka muslimkii inuu si fiican u fahmo u baahan waayo culimmadu waxay ku tilmaamaan waa alcilla alghaa'iya bay yidhaahdaan ama ilaahay subxaana wa tacaala cid kasta oo sanco samaysay iyadaa taqaana xikmadda sancadan uu sameeyey ka dambaysa maxaa loo sameeyey gaadhiga ninka abuuray ama kamaradan hortay taalle ninka sameeyey isagaa garanaya xikmadii uu ka dan lahaa kamarada in wax lagu sawirto in wax lagu duubo insaan loogu shaqeeyo isagaa lahaa saanic kasta markaa isagaa la weydiiyaa sancadiisa xikmaduu uga dan leeyay maxay tahy bini aadamkana waxaynu naqaanaa alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu alkhabiir ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala maadaama uu alla abuuray ilaahay baynu weydiinaynaa subxaana wa tacaala insaanka xikmada loo abuurayba waxay tahy rabbina qur-aanka wuxuu ku leeyay wamaa khalaqtu اljinna waalinsa ila liyacbuduun umaan uumin ama uma amaamudin uma unkin uma abuurin bini aadamka jin iyo insi midnaba umaan abuurin baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ilaa liyacbuduun inay caabudaan mooyaane idan khalqiga ama insaanka wixii loo abuuray alcilla alghaa'iya ahaa waa cibaada inuu ilaahay subxaana wa tacaala caabudo waana waxaa loo soo diray rususha oo wixii rasuul la soo diro o dhammi waxay lahaayeen sida qur-aanku tilmaamayo ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh ucbudu allah nebi nuux baa leh nebi huud baa leh nebi saalix baa leh nebi shucayb baa leh nebi muusa leh qur-aanka ambiyada oo alla kaga warramayo subxaana wa tacaala waxay leeyihiin ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh wardadow alle caabuda subxaana wa tacaala ma lihidin kulla caabudo oo ilaahay hayrkiiya walaqad bacatnaa fi kuli ummati rasuula an icbudu allaha wاjtanibu الطaaguut faminhum man hada allah waminhum man xaqat calayhi الضalaala waqaala tacaala wma arsalna min qablika min rasuul ila nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ummad kasta waxaan u soo dirnay rasuul rasuulkaasina wuxuu dadka ugu yeedhayay an icbudu allaha wاjtanibu طaaguut ama rasuul walba waxaan u soo waxyoonnay buu alla leeyahy subxaana wa tacaala annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla haweyne waaxidkaa mooyaane subxaana wa tacaala keligii in la caabudo waxaan leenahay markaa cibaadadu bikulli anwaaciha nolosha gebigeedaba cibaada loogu talagalay oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy nebi maxamed baa waxaa lagu leeyahy waxaad tidhaha qul ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
إلهي وحليه سبحانه وتعالى وحتى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي dadka waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay leeyahy salaadayda iyo gowracayga iyo noloshayda iyo geeridayda dhammaantood baa ilaahay baa keligiis kale subxaana wa tacaala yacni wax kasta oo iga soo fulaa waxa ay ku toosan yihiin oo keliya inuu ilaahay wuxuu jecel yahay noqoto wuxuu raalli ka yahayna ay tahay nolosha qofka bini aadamka hata laga rabaa taasiya waa wadiifatu lcumr bay culammadu yidhahdaan waa shaqada noloshoo dhan loogu talagalay waayo ilaahay baa nebi moxamed wuxuu ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin wacbud rabbak rabbigaa caabud ilaa uu kaaga imanayso yaqiintu yacni geeridu intay kaaga imanayso ilaahay caabud subxaana wa tacaala idan cibaada waa wadiifat alcumr waa waxa aad dunida u joogto waa xikmadda lagu abuuray waa shaqada lagaa raba inaad qabato ficil kasta war kasta hadal kasta caqiide kasta wax kasta oo kaa soo fulaa waa inuu ku jiraa xuduudda ilaahay uu jecel yahay raalli ka yahay qofka bini aadamkaa markaa noloshiisa o dhan waxaa loogu talagalay inay cibaado noqoto waana waxa alla subxaana wa tacaala bini aadamka uu ku kala koraysiiyo kuwa alla jecel yahay ilaahay wuxuu ku sifaynaya inay ilaahay addoommo u yihin yacni markaad cid kale addoon u noqotaa dullinimo ah cid kale haddaad addoon u noqoto waad xorriyad la'day naftaada ha noqoto qowmiyaddaada ha noqoto qabiilkaaga ha noqdo mabaadi'u lkufri ha noqdo wax kasta oo kaloo aad addoon u noqoto waa dullowday xorriye waxaa la yidhaahdaa qofku markuu makhluuqaadkao dhan ka xoroobo ee ilaahay subxaana wa tacaala keliguu addoonnimadiisa qiro ha hiya alxorriya amaa qof shahwaatu nafs addoon u ah ama wax kale addoon u ah waa kii eraygu ku soo lakhisaya culamaa'i taariikh ay tilmaamaan markuu ribciy ibni caamir rustam janankii hogaaminayay ciidankii bershiya iyabaa kulmay ciidan uu hogaaminayo sacd ibn abi waqaas saxaabiga casharata almubashiriinka ka mid ahaa xarbi alqaadisiya oo macrakati alqaadisiya intaanay dhicin buu wuxuu dalbaday in loo soo diro bal cid ay wada hadal galaan muslimiintu waxaanay doonayaan wada hadal bal ka gala buu leeyahy maxaa rabtaan nin buu yidhi ha lay soo diro sacad baa u diray nin markaasuu yidhi ku labaad maalin labaadii buu yidhi bal mid kale ii soo dir waa loo diray maalin saddexaaddii buu yidhi ku kale ii soo dir waa loo diray saddex saxaabiyo kala nooca xudayfa iyo mugiira iyo ribciy ibni caamir saddexdaa saxaabaa loo diray weedhahay lahaayeen markaa weedha ribciy ibnu caamir uu ninkan ku lahaa waxa wey war maxaa idin soo bixiyey buu weydiinayay rustam ma gaajaa idin soo saartay ma xoolaad doonaysaan wax kasta ana idin siinaye dhulkiinni ku noqdaa dabeetana ribciy ibnu caamir wuxuu yidhi ilaahay baana soo saaray horta waxaana naloo soo bixiyey inaanu dad ka saarno min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illaahi waxda dadku inay iscaabudaan oo badhba badh kale u caabudo oo loo saaro ilaahay oo keliya inay dadku cibaadada ula yimaadaan taasaan u soo baxnay buu leeyahy adduunka cidhiidhigiisa inaanu ka saarno aakhiriya adduunba ballacooda tusino mugiirata bnu shucbna sariirta boqortooyadu la fuulay markii uu soo galay dabeetana waa la soo rogay wuxuu yidhi maanta ka hore maan moodayn dadka in badhba badh caabudo inay iscaabudaan oo saataan u tihiin maan moodayn buu tilmaamaya idan cibaadadu waa wax ilaahay keligii loola yimaado qofkuna wuxuu xor yahay marka aanu caabudin shaytaan jin insi sixir malag iyo rasuul iyo cid kala toona markaanad caabudin markaad aqbasho cidda qudha aad u hoggaansataa inay rabbi noqoto subxaana wa tacaala addoomaha markaa alla abuuray subxaana wa tacaala waxay ku kala koreeyaan oo ku kala sarreeyaan sida ay cibaadadaasi u kala gudan og yihiin maalan marka ilaahay malaa'igta sifaynayo waxa ilaahay subxaana wa tacaala ama ambiyada sifaynayo malaa'igta ilaahay wuxuu ku sifeeyey walahu man fi الsamaawaati wاlardi waman cindah laa yastakbiruuna can cibaadatihi walaa yastaxsiruun
yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun. ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala, ilaahay wuxuu leeyahay cir iyo dhulba waxa jooga, kuwa agtiisa joogaana laa yastakbiruuna can cibaadati. alistikbaar huwa ضد alcubuudiya. haddaynu idhaha alcubuudiya hiya dul waalkhuduuc, waa isdhuldhig. istikbaarkuna de waa kibir iyo santaag. ilaahay wuxuu leeyahay kuwa illa agtiisa joogee malaa'ig oo dhammi, jibriilkaa 600 baal ku duula, laa yastakbir, iskama weyneeya alla subxaana wa tacaala cibaadadiisa. laa yastakbiruuna can cibaadati wayusabbixuuna lahu wayasjuduun. ilaahay bay u tasbiixsadaan oo u sujuudaan oo caabudaan, marnaba ma joojiyeen. yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun. alla subxaana wa tacaala wuxuu caayay markaasi kuwa iska weyneeya cibaadadiisa. wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin. rabbi wuxuu ina leeyahay aniga icaabuda oo ibarya, astajib lakum waan idinka aqbalayaay. ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii, kuwa aniga iska waaweynaynaya cibaadadayda iyo baryadayda, jahannamay gelayaan iyagoo dulaysan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. ilaahay subxaana wa tacaala markuu sifaynaya dadka ahlu janno ee khayrka badan leh, wuxuu ku sifaynayaa addoommo alle inay haayeen. caynan yashrabu biha cibaadu اllah yufajiruunaha tafjiira wacibaadu الraxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna. idan wasfiga dadka ahlu iimaanka ah ilaahay wuxuu ku sifaynaya subxaana wa tacaala sifadaasi inay leeyihin. bale nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo inta alla abuuray u fadli badnaa, waxaa lagu sifaynayaayoo fadligiisa ugu weyn lagu tilmaamayaa inuu ilaahay addoonkii ahaa. innaguna markaynu ashahaadanayna waxanu dhaha ashhadu an laa ilaaha ila allah, waxaan qirayaa an laa ilaaha an laa macbuuda bixaqin ila allah, ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin alle mooyaane subxaana wa tacaala. wa ashhadu ana muxamada cabduhu wa rasuuluh, waxaan kaloo qirayaa baad leedahay nebi moxamed inuu alle addoonkii yahay. addoonnimaad u qiraysaa. iyo wa rasuuluh, addoonnimada qiraalka nebi moxamed aad u qiraysaa. maya sidbaa maya. ilaahi subxaana wa tacaala markuu meesha ugu sarraysee bini aadam gaadho, markuu nebigu gaadhay, waxaa ilaahay ku sifeeyey inuu addoon yahay. waayo qofku inuu addoon rasmiya noqdo meel ka sarraysa oo la gaadhaan jirin. basharku ilaah ma noqdo, ma dhaafo addoonnimo. dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira. waxaa weynaaday allaha subxaana wa tacaala nazla alfurqaana calaa cabdih, addoonkiisa ku soo dejiyey furqaan. alxamdu lilahi aladii anzla calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja. waxaa mahadoo dhan iskale baa la yidhi subxaana wa tacaala alxamdu lilah aladii anzla calaa cabdihi alkitaab, ilaaha addoonkiisa kitaabka ku soo dejiyey. idan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam mansilada ugu koraysa uu gaadhaya waa inuu addoonnimo xaqiijiyey. bale markuu samaawaadka alla qabadsiinaya ilaahay muxuu leeyahy markii maka laga dheelmiyey ama laga guuraysiiyee baytulmaqdis la geeyey, subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlah. allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxaa xuma ka hufnaaday aladii asraa bicabdih, allaha guuraysiiyey addoonkiisa, laylan habeen guuraysiiyey oo ka guuraysiiyey masjid alxaraamka ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlah. fii layla waaxida, fii daqaa'iq ayaa alla subxaana wa tacaala ka qaaday meesha la yidhaahda maka oo uu geeyey madiina. wاnnajmi idaa hawaa maa dalla saaxibukum wamaa gawaa wamaa yantiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa. ilaahay subxaana wa tacaala nebiga markuu ammaanayo wuxuu tilmaamayaa faawxaa ilaa cabdihi maa awxaa. fowqa 7 samaawaat markii la geeyey la dheelmiyey ee laga qaaday bayt almaqdis xagga sare la qabadsiiyeyna, ilaahay wuxuu leeyahy faawxaa ilaa cabdihi maa awxaa.
ilaahay wuxuu u soo waxyooday addoonkiisii wixii uu u soo waxyooday. yacni ilaahay baa addoonnimo u qiraya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. idan addoonnimadu waa mansilada kama dambaysta ah. markii nebiga calayhi salaatu wasalaam jibriil u yimi ee weydiiyey islaamka ii sheegay, uu nebigu u sheegay, yidhi waa shanta arkaanulislaamkaa sheegay, ou yidhi run baad sheegaysaa. ay saxaabadu yidhaahdeen waxaanu la yaabnay, waxna waa weydiinaya waana u rumaynaya o markhaati furaya. ee uu yidhi iimaanka ii sheeg, ee uu nebigu u sheegay 6 arkaanuliimaanka, ee uu yidhi run baad sheegtay, ee uu weydiiyey ixsaanka, muxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraah fainahu yaraak. idan alqaacida aluulaa ayn tilmaamaynaa waxa weeyaan makhluuqaadku waxay u kala sarreeyaanba siday ilaahay cibaadadiisa u kala gutaan. meesha ugu sarraysa ee makhluuqu gaadhaana waa inuu noqdaa cabdi ka mida ilaahay subxaanah wa tacaala addoomihiisa. addoon dhaba waa inuu alla u noqdaa subxaanah wa tacaala. sida awgeed nebiyada markii alla sifaynaya subxaanah wa tacaala saasuu ku sifaynaya inay addoon yihiin. waa ka alle subxaanah wa tacaala markay ciise ku xadgudbeen maxaa ilaahay leeyahy? ciisa ilaaha iyo ina ilaah iyo waxaa markay sheegeen, in huwa ilaa cabdun baa ilaahay yidhi, in huwa ilaa cabdun ancamna calayh wajacalnaahu mathala libani israa'iil. in huwa ilaa cabdun ancamna calayh, wax kale ma aha baa ilaahay leeyahy. in huwa ilaa أداة النفي والحصر، النفي والاستثناء ومن أدوات الحصر في اللغة العربية. wax kale oo la sheego haba yaraatee uu noqon karaa ma jirto ciise inuu yahay mooyaane maxay? cabdun ancamnaah baa ilahay yidhi, addoon aan u nimceeyey. wax kale uu noqon karaa ma jire, waa addoon aan u nimceeyey. wajacalnaahu mathala libani israa'iil. bale nebi moxamed baa lahaa calayhi الsalaatu wasalaam, laa tuطruunii kama aطrat الnasaara bni maryam fainamaa ana cabdun faquluu cabdullahi warasuuluh. ha igu xadgudbina buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam siday ugu xadgudubtay nasaari ina maryama oo ciisa say ugu xadgudubtay ha igu xadgudbinina. fainamaa ana cabdun. nebi moxamed wuxuu leeyahy anigu ilaahay addoonkiisii baan hay. waxaad tidhahdaan cabdullahi warasuuluh, ilaahay addoonkiisii iyo rasuulkiisii dheh. sida awgeed ilaahay subxaanah wa tacaala markuu taxadiga qur-aanka ku samaynayo, wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina baa ilahay leeyay, haddii muraan idinkaga jira ama shaki waxaanu ku soo dejinnay addoonkayaga fa'tuu bisuuratin min mili. cibaadadu markaa waa meesha ugu koraysa ee cubuudiyada insaan uu gaadhi karo, waa halka kama dambaysta ee insaanku uu gaadhi karo. cubuudinimada ama cibaadada aynu markaa tilmaamaynaa. cibaadadu 2 shay bay leedahay baa la ydhahaa. inuu jiro altadallul waalkhuduuc, isdhuldhig. laakiin isdhuldhigu maaha mid qahri quri keenay, in lagaa xoog batay o aad isdhuldhigtay laakiin aad necabtay qofku, kaasi cibaado maaha. cibaadada waxa weeyaan waa isdhuldhig uu la socdo maxay? xubun lilahi subxaana wa tacala, kalgacal. wuxuu qofka muslimkii qirsaya addoonnimadiisa, dacfigiisuu ogyey, ilaahayna weynidiisa iyo qudradiisuu ogyey. sida daraaddeed wuu isu dhuldhigayaa. qofku wuxuu og yahay faqrigiisa iyo baahidiisa, sida awgeed ilaahay buu kaalmo ka dalbaya, waa isu dhuldhigayaa. qofku wuxuu ogyey ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa. waalcadamatu tuxib, sideedaba insaanku weynida wuu jecelyahay. xataa basharka caadiga qofka wax ku caan noqde ku caanbaxa dadku way iska dabagalaan. so dad maydaan rag wiil yaroo kubadlaada u ooyaya ama mid haysta ka daba ooyaya. insaanku sidiisa qofka wax dheer uu iska jecelaya oo iska dabagalaa. famaa rabu samaawaati waalardi, maxaad u malaynaysa? rabbiga cirka iyo dhulka iyo adiga iyo makhluuqaadka gebigoodba leh, cadamo dhammaanteed iyo weyni iska leh. idan alcibaada 2 rukni bay keensataa. sidaa daraaddeed culammadu waxay yidhaahdaan man khadaca liinsaanin maca bugdi, qofka insaan u khuduuco de ka xoog badiyo laakiin isagoo necab ama la qasbayo
ama hunguri kale inuu iska hayo laguma tilmaamo inuu caabid yahay. cidda wuxuun iska jeclaatay ee jacayl inuu wadana laguma tilmaamo inuu caabid yahay. caabidku waa cidda labadaasiba kulansata, waa cidda kulansata kalgacalka alle subxaanahu wa tacaala. waayo cibaadada rukunkeeday ka mid taho ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy qul in kaana aabaa'ukum waabnaa'ukum waإkhwaanukum waأزwaajukum wacashiiratukum waamwaalun اqtaraftumuuha watijaaratun takhshawna kasaadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إلهي بأوحو ليه سبحانه وتعالى هدي آبياشين يكوار دشين ولا الذين يهوين كان قبطان قرابة دي يتلقي حولها هيستان تجارة نور ريسان إلى شان ريسان guryaha dhisateen intaasi haddii lagaga kalgacayl badan yahay alle iyo rasuulkii iyo tii alloo loo jahaatamo fatarabasuu xataa ya'tiya allahu biamri. idan waxa wada socda oo cibaadadu ay keensataa in dadku ay caabudaan alle subxaanahu wa tacaala oo markaasi ay keensanayso inaad alla jeceshahay isuna dhuldhigayso. maadaama ay cibaadadu labadaasi wada keensato qaacida waxaa bay idhaahdaan khuduuci kasta oo laga waayo ilaahay inuu isu dhuldhigo cid kasta oo laga waayaa waa jaanibka kale ah, waa kibir. laa yastakbiruuna can cibaadati baa ilaahay malaa'igta ku sifaynaya. waxaa alla ku tilmaamaya lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilah. kama santaaga baa ilaahay leeyahay ciise inuu addoon ilaahay noqdo ee waa isu dhuldhigaa. amaa cidda ilaahay addoonnimadiisa ka santaagta ilaahay subxaana wa tacaala inaynu addoommo u noqonno waxaa laynagu eegay inaynu khuduucno oo sujuudno oo rukuucno. walidaalik ayaa salaadda waxay tahay khuduuc meeshii ugu dambaysay. qofku laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu llah markuu yidhaahdo laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin ila allah waxaad qirtay cid dhab loo caabuda oo cibaadadiisu ay xaq tahay inaanu jirin alle mooyaane subxaana wa tacaala. fama daliilu calaa dalik? maxaa kuu daliila inaad masaladan qirtay? waa masale caqadiya qalbiga degta. waxaa daliila foodaad dhulka ku haysaa. asalaa macnaheed waxa weeyaan inaad kibir meel iska dhigtay, halkii kuugu qaalisanayd ayaad dhulka dhigaysaa. cubuudinimadu markaa addoonsigu waa qofka mu'minkii rabbigii buu ishortaagaa isagoo u khushuucaya oo u tadallulaya oo isu dhuldhigaya oo baryaya oo u sujuudaya oo u rukuucaya. walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay markaad rukuucdaan facadimuu fiihi rabba caza wajal. xadiidkii muslim ku yaallay rukuucda markaa ku jirtaan ilaahay weyneeya baa layidhi. adigu intaad foorarsato hoos u foorarsato ayaa maxaad leedahay? subxaana rabbiya alcadiim. waxaa xumo ka hufanoo weyn rabbiga koreeya. adna waad isfooraraysay, adna waad rukuucday, labada low baad haysataa, waad foorarsatay. dabeetana waxaad leedahay waxaa weyn oo cadiima rabbiga koreeya baad leedahay subxaanahu wa tacaala. nebigu wuxuu ina yidhi calayhi salaatu wasalaam waama sujuud faاjtahiduu fi اdducaa faqaminun an yustajaaba lakum buu nebigu yihi. sujuuddana markaa iyada fooda dhulka dhigtaan iyada isdhuldhig waa dhamaysaye baryada badsada buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. markaa mowdicu sujuud waa meeluu alle wax ku aqbale eh. markaad fooda dhulka ku hayso markaa ilaahay baryadiisa badi. maxaa laynaga rabaa inu idhaha allahuma laka rakactu wabika aamantu walaka aslamtu khashaca laka samci wabasari wamukhi wacadami wacasabi. rukuuc oo dha baa lagu yidhi ilaahay ow adigaan kuu rukuucay, adaan kuu rumeeyey, adaan kuu hoggaansanahay. maqalkayga, araggayga, dhegtayda, maxaa la yidhaha maskaxdayda, laftayda, curuuqdayda, waxayguba ilaahu aday kuu hoggaansan yihin dha baa lagu yidhi. idan qofka mu'minka ah salaadu culammadu maxay ugu murantaa qofka salaada ka tegay ma gaal baa mise waa muslim? waa mustakbir bay leeyihin, waa qof diidan inuu ilaahay fooda dhulka u dhigo. haddaad istikbaarkuna waa min ibliis muxuu ku gaaloobay?
أستكبرت ما إلهي أم كنت من العالين أسجد لما إله ما وحن السجود أبو يري أنا آدم iyadoo anigana adiga abuurtay dab isagana maxay adooba ka abuurtay ilaahay wuxuu ku yidhi astakbarta war miyaad isweynaysay baa la yidhi ibliisow am kunta min alcaalin mise markii hore abaad korraysaye hoos baaba lagu dhigay miyaad isweynaysay baa la leeyahy subxaana wa tacaala idan ilaahay cidda diiddaa waa cid isweynaysay cidda diidda inay sujuuddaa waa cid cibaado diidday sida awgeed baa culammada murankoodu ka taagan yahay ninkii salaad diiday laa ilaaha ila allahdiisu dhab qalbiga uma gelin hadday dhab qalbiga u gashay bay leeyiin waxay ahayd inuu fooda dhulka ku hayo waxay culammadu ku tilmaamaan cibaadadu hal macnay koobsataa bay idhahdaanoo si fiican looga fahmaa waxay idhahdaan aliftiqaaru lmutlaq ila allah ayaa lubbulcibaada bay idhahdaan cibaadada beerkeedu ama halka laga baxa halka qura ee laga goosta cibaadada rasmiga ahi waxa weeyaan aliftiqaaru lmutlaq ila allah waa baahi dhammaystiran oo qofku uu muujinayo inuu ilaahay u baahan yahay yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid wardadoow baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacala war idinkaa ilaahay u baahan ilaahayna subxaana wa tacaala huwa alghaniy alxamiid waa allaha deeqtoon ee la mahadiyo nebi muuse markuu cidlada u baxay ee fircoon ka cararay ee xooggiisii wax uu ku cuno waayey ee ceelka intuu habla waraabiyey geedka hoos fadhiistay muxuu yidhi faqaala rabbi innii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir ila wixii aad khayri siisay maanta faqraan kaga sugnay qofku hadduu qirto bay yidhaahdaan inuu ilaahay u baahan yahay subxaana wa tacaala wuxuu noqonayaa inuu noqdo ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi alcaalamiina laa shariika lah wabidalika umirtu wa ana awalu lmuslimiinku ku biiraya in mas'aladani ay dhacdo waxay u baahan tahay laba shay shay waxa weeyaan inaad rumaysato ilaahay weynidiisa subxaana wa tacaala cadamadiisa iyo qudradiisa awooddiisa iyo rabbinimadiisa inuu rabbi yahay maalik yahay sayid yahay dunidoo dhamm isaga gacantiisa ku jirto inaad rumaysato kuwii ilaahay caabudi waaye ilaahay muxuu yidhi wamaa qadaru llaha xaqa qadri may weynaynin weynidoo alla mudnaa baa ilahay le isagoo yuhuud ka hadlaya wamaa qadaru llaha xaqa qadri waalardu jamiican qabdathu yowma alqiyaamati wasamaawaatu matwiyaat biyamiini iyadoo dhulkao dhammi baa la leeyahy subxaana wa tacala ilahay gacantiisa ku jira maalinta qiyaame cirkoo dhanna waa la duubi doono midigtiisa ku duubi waxay culammadu yidhaahdaan waxa kulmiya cibaado waxa weeyaan qofku inuu ilaahay sifaati ilaahiyatihi inuu barto rabbinimadiisa alle subxaana wa tacaala ilaahnimadiisa inaad barataa waxay keenaysaa inaad kalgacalka u gaar yeesho jeclaatid inaad alle la kulantid subxaana wa tacaala u dhowaatid waayo awliyada alle waa kuwa ilaahay u dhow maxaa ilaahay loogu dhowaadaa wuxuu raalli ka yihiyo wuxuu jecelyahy xadiidkii sheegayay ciddii ilaahay awliyadiisa la dagaalantay faqad aadantuhu bilxarb maxaa la tilmaamay subxaana wa tacaala addoonkaygu wax ka fadli badan wax ka fiican iguma dhowaado maxay mima iftaradtuha calayh wixii aan ku farad yeelay baa la leeyahy subxaana wa tacaala idan qofka mu'minkii waa qof muujinaya inuu ilaahay u baahan yahay ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala isaga tala saaranayo qofka mu'minkii waa kaa intuu salaad u kacale iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka nacbud suurat alfaatixa culammadu waxay yidhahdaan waxay koobsanaysaa mas'alat alxubi walrajaa'i waalkhawf oo ah bay leeyihin cibaadadu arkaanta ugu waaweyn ay leedahay cibaadadu waa isdhuldhiggu wuxuu keenaa bay leeyihiin ilahay waxaad isugu dhuldhigaysaa cadamadiisa adoo ka cabsanaya iyo adoo rajaynayaba weynidiisa waxaad jecesha oo raalli ka tahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nimco ku siiyey qofka maanta $1,000 maanta kuu dhiiba hadduu berri kaa soo horbaxana 10 kale kuu dhiiba beriga dambe 100 iska kaa siiya hadduu kuu dhiibo markuu ku arkaba beriga dambe xaggiisa lagaa mari maayo hebel waa nin la arkay oo kale maaha baad leedahay
waxsiintu ku siiyey baad ku jeclaatay rabbu samaawaat ku nooleeyey ku arsaaqay ku caafimaadiyey ku xoojiyey ku muslim kaa dhigay ku nimceeyey nimcadiisaa lagu jeclaadaa waxaa keenaysa waxa uu maalin walba ku siinaya inaad noqdo ilaahay subxaana wa tacaala mid agtaada lagaga kalgacal badan yahay waxa jira ee kale oo dhan sida awgeed baa qofka mu'minka ah ilaahay subxaana wa tacaala weynidiisa uu rumaysan yahay waa kaasi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markaad leedahay waa arkaanta diintuba waa xub iyo raja iyo khoof bay yidhaahdaan xamdiga iyo mahadnaqu wuxuu sheegayaa alle subxaana wa tacaala inaad jeceshahay alraxmaan alraxiim rajay sheegaysaa yaa alla naxariis badan oo aad quudaraynayso maaliki yowmidiinna khowf bay sheegaysaa bay leeyihin iyo maalinta qiyaame iyo cabsidiisa inaad alle ka cabsatid walidaalik baad markaad muqadamaadkaa sheegataad leedahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahu adaanu ku caabudaynaa adigoo keliya ayaanu kaa kaalmo dalbaynaa idan weynida ilaahay oo aad dareento cadamadiisa saa daraaddeed qur-aanku masaa'ilku cibaadada markuu ka warramayo aayaat rububiya baa inta badan ka horeeya waxaa alle uu cir abuuray ee dhul abuuray ee makhluuqaad jirsiiyey waxaa markaa alle ka warrama subxaana wa tacaala buu cibaadadiisa ka warramaa ka labaadee keensanayaana waxa weeyaan inaad dareentid daciifnimada reer nebi aadam uu daciifka yahay waxay yidhahdaan alinsaanu bifitratihi caabid qofka bini aadamkii abuur ahaan buu yahay mid wax caabuda meel baa madhan insaanka bay yidhahdaan aanay buuxinin ilaa cibaada mooyaane culamaa ilathar anthropologyga kuwan ka warramaa waxay yidhahdaan taariikhda bashariyada lama hayo xafriyaad la qoday ama magaalo la helay oo aan meel lagu cibaadaysto lahayn meel lagu cibaadaysto wixii la doonaya ha la caabudayo cibaadadu ama dar alle ha noqoto ama kayrkii ha noqoto yacni insaanku bay leeyihin bifitratihi ayuu caabid yahay haddaad dareento dacfigaaga iyo liidnimadaada iyo waxaa alla kaa abuuray waxay keensanaysaa inaad ilaahay caabuddo aanad kibrin falyandur اlinsaanu mima khuliq khuliqa min maaءin daafiq yakhruju min bayni الsulbi wالtaraa'ib inahu calىa rajcihi laqaadir yowma tubla الsaraa'ir fama lahu min quwati walaa naasir basharku ha fiiriya baa la leeyahy subxaana wa tacaala ha eego mima khuliq waxa laga abuuray khuliqa min maaءin daafiq min maaءin mahiin biyo yar baa laga uumay baa la leeyahy subxaana wa tacaala idan inaad dacfigaaga dareentaa waxay keensanaysaa ilaahay weynidiisa subxaana wa tacaala iyo cadamadiisa inaad qadariso maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaara waqad khalaqakum atwaara alam taraw kayfa khalaqa allahu sabca samaawaati طibaaqa wajacala alqamara fiihina nuura wajacala ashamsa siraaja ilahay baa wuxuu ina leeyahy maa lakum laa tarjuun war maxaa la-aantiina maxaa idinku dhacay oo laa tarjuuna lilahi waqaara ilahay maxaa u weynayn weydeen baa la leeyahy waxaad ilaahay u weynayn weydeen maxay tahay waqad khalaqakum atwaara walxaal qad khalaqakum isagoo alla idin abuuray maxay atwaaran tawrar kala gadisan biyo yar dhiig yar hilib lafa wata ilmo yar uur ku jira mid xaarkiiyo kaadada isku shubo oo laga maydho soo koriyo intan kusoo ilaahoo atwaartaasi ku soo mariyey sidee baydaan si dhaba ugu caabudaynin subxaana wa tacaala waxay keensanaysaa taasi marka cibaadadu maadaama ay tahay gaayat atadallul aw aldul ilaahay oo aad sul dhudhigto subxaana wa tacaala maca gaayat alxub waxay keensanaysaa inaad ilaahay subxaana wa tacaala hortiisa isdhigtid adigoo u rukuucaya oo u sujuudaya adigoo ku kalsoon weynidiisa iyo cilmigiisa iyo khibradiisa adoo warkiisa aan warka horgeynaynin macquul ma aha waayo hamaratu dul waxa weeyaan ilaah iyo rasuulkiisa inaad warka la horumarin wamaa kana limu'minin walaa mu'minatin إida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahm اlkhiyaraةu min amrihim wama kan ma kana wama صaxa wama yanbagii suurtagal maaha baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala qof mu'min iyo gabadh mu'minadii ilaahay intuu wax xukumo
inay doorasho kala yeeshaan suurtagal maaha. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أما عدة ضلضوشة يا إلهي سبحانه وتعالى أقونتي كيراته إلهي إنad barataaba keensanaysa inaad ka cabsato inaad jeclaato haddaanad si xaggiisaba u dhaqaaqin waxay keensanaysaa duulduul iyo kibir kii ilaahay nebi ciise uu ka tilmaamayay lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilah wala almalaa'ikatu almuqarabuun baa ilahay yidhi ciise marna kama santaagayo inuu alle addoon u noqdo malaa'igta muqarabiintiina kama santaagayaan oo cidda ka santaagta maxaa ku dhacaya waman yastankif can cibaadatihi wayastakbir fasayaxshuruhum ilayhi jamiica cidda ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa ka santaagta ee iska weynaysa baa alla yidhi ilahay waa soo xaadirinaya dhammaantood faama aladiina aamanuu wacamiluu صaalixaati fayuwafiihim ujuurahum wayaziiduhum min fadlih waama aladiina istankafuu wastakbaruu fayucadibuhum cadaaban aliima walaa yajiduuna lahum min duuni illahi waliya walaa nasiira. ilahay wuxuu ku tilmaamayaa mu'minka dhabtii inuu yahay mid alleba haddii lasoo hadal qaado sujuud u dhaca haddii ilaahay magaciisa la xuso subxaanaه wa tacaala waa mid inamaa yu'minu biaayaatiya aladiina إida dukiruu biha kharuu sujada wasabaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun. inamaa yu'min biaayaatina ilahay wuxuu leeyahy annaga aayaadkayga waxaa rumeeyey oo keliya kuwa idaa dukiruu biha haddii alle la xasuusiyo aayaadkiisa la xasuusiyo kharuu sujada hoobta iyagoo sujuudaya baa alla leeyahy subxaana wa tacaala wasabaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun. mar kastoo qalbiga qofka bini aadamkii uu hoggaansamo oo alla jeclaado cibaadadiisa kor noqota cibaadadu alle caabudayo ayaa kor noqota ku-xidhnaanshiyuhu alle ku xidhayay subxaana wa tacaala ayaa tiro bata wuxuu gaadhaa xad aanu hawada naftiisa iyo naftiisu waxay doonto marnaba ka horu marin wixii alla doono subxaana wa tacaala laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi wاlmaghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam yani aayadda qur-aanka ilahay wuxuu ku tilmaamaya waa qof maxbuubaadkiisa waxa uu jeceliya ka horaysiya alle subxaana wa tacaala isagoo xoolaha jeceloo xoog kaga baxay haddana ilaahay dartii u bixinaya maadaama uu alle leeyahay bixi oo faqiir iyo miskiin iyo ibnu sabiil iyo saa'il iyo mid wax weydiistaiyo mid kaloo dhanba siinaya. waxau nabigu ku tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam qofka mu'minkahay markuu qalbigiisu xadkan gaadho waa qalbi ilaahay ku xidhma. toddobadii carshuraxmaanka hadhsanayay qiyaamaha maxaa ka mid ahaa warajulu qalbuhu mucallaqun fi lmasjid nin la yidhi qalbigiisu masaajidku ku xidhayay yacni waa nin daa'imu sila billaahiya ilaahay xidhiidh fiican la leh xataa wakhtiyada aan jidhkiisu masaajidka joogin wakhtigu shaqadiisa iyo bayciisa iyo wixiisa wado mar walba allu xasuusayay subxaana wa tacaala. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن ضلال يا خسارة waxa ugu badan cidda qalbigiisu ilaahay غayrkii ku xidhanto cidda cid aan alla ahayn subxaana wa tacaala addoonu noqda waa loo noqdayo ilaahay ba qur-aanka wuxuu ku leehay afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah ka warran baa alla leeyahy subxaana wa tacaala ka ilaahiisa macbuudkiisii ka dhigtay hawadiisa naftiisu waxay doonto
ilahay waa ilaabay subxaanaه wa tacaala naftiisu waxay doontaa hogaamisa bale qaar buu nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam ku tilmaamaya tacisa cabdu dinaar wa cabdu dirham wa cabdulkhamiisa nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa hoogay ama ha hoogo ka dinaarka addoonka u ah haddaad shilinka sida loo shaqeeyo u dullowdo oo kalgacalkiisa bad iyo berriba u jiidho oo nafta u weydo isagaad addoon u tahy alcibaada waxaynu nidhi waa maxay aldullu waalkhuduuc maca alxub haddaad waxaba isugu darto marka haran iyo xalaal u kala arki weydo oo kalgacalkiisa kugu bato oo meel dheer iyo meel dhow halkuu galaba aad ka daba gasho oo xaraan iyo xalaal stii lagu qaadi karaba aad ku qaaddo oo ururintiisa aad u soo taagnaatid oo aad isaga addoon u noqotid dadku marka dambe waxay gaadhaan xad xataa intay naftooda ilaabaan laba heeliyadoo xunxun uu xidhan yahay kii dadkaba ugu xeelaa badnaa waayo iyagu addoon u yahay ururintooda soomaalidii geela dhaqi jirtayna dhowr boqoloo halaad buu kabala'aan iyo shaadh la'aan iyo waxba la'aan ku dabageli jiray isagoo intaasoo maalmood marna ceel u wada marna xergeynaya marna daaq u wada intabana ka kaba waa cabd addoon nebiga marka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay waxa hoogay ninkii diinaar addoon u noqday iyo dirham ninkii qatiifad iyo khamiis addoon u noqday haddii la siiyo wuu raalli noqonayaa hadduu waayana wuxuu odhanaya aniga cirkaa igu soo dumay meeshaanu cararaba waa la dhababay uun balaayuun bay haysato shilinkaba waa layga dheereeyey nebi maxamed baa wuxuu leeyahay tacisa wantakasa waidaa shiika falantaqasha waa hoogay oo gombadiisu ka laabtay oo waidaa shiika falantaqash minqaashka waxaa la dhaha qodaxda waxa lagu bixiye lagu dhiranay yacni kaasi ma soo laabto baa lagu tilmaamaya qofku inuu caabid noqdo oo cibaadada laazimo waxyaabaha kobcinaya markaa waxaa ka mid ah ilaahay subxaanaه wa tacaala dikrigiisa iyo istikfaarka inaad badsato aman huwa qaanitun anaa alleyli saajida waqaa'ima yaxdaru اlaakhira wayarjuu raxmata rabbih inaad noqoto aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim waxyaabaha korinaya iimaanka ama korinaya inaad addoon dhaban noqoto istikfaarka tirabada sayid اlistikfaar waa maxay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxaa jirta duca uu ku tilmaamay ducada madaxda u ah istikfaar dhammaantiiba xadiidkii bukhaari ducadani waa tee allahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduk ducadani waxay sheegaysaa inuu qofku leeyahay allahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta tawxiid ilaahu adaa rabbigaya ku xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane khalaqtanii wa ana cabduk waadi uuntay anna addoonkaa baan hoo addoonnimaan ogolahay wa ana calaa cahdika wa wacdik ilaahayo wixii aad ii yaboohday ballankaad ii qaaday iyo cahdigaan kula galay iyo wacdigaagii baan wadayaa ma staطactu inta aan awoodo acuudu bika min shari ma sanactu ilaahu waxaan kaa magan galay wixii gafya qashin iga dhacay abuu'u laka binicmatika calay ilaahu waxaan ictiraafay muctarif waxaan ku ahay waxaad nimca i siisay wa abuu laka bidenbi waxaan kaloo ictiraafayaa dembiga iga dhacay ikfir lii fainahu laa yakfir dunuuba ila anta ducadan wuxuu ku tilmaamay nebigu sayid اlistikfaar bale wuxuu ku tilmaamay subaxii qofka yidhahda isagoo yaqiinsan ka dhab ah addoonnimadaasi hadduu subaxaasi dhinto inuu jannada gelayo wuxuu kaloo nebigu tilmaamay fiidkii qofka yidhaahda isagoo yaqiinsan hadday habeenkaasi naftu ka baxday inuu jannada gelayo waa duco yaqiinteediiyo odhahdeedu haddaad ku dhimato uu nebi maxamed ballan qaaday calayhi salaatu wasalaam in janno lagu gelayo addoonnimada waxa keena waxaa ka mid ah qofka mu'minkii wuxuu rumaysayee mar kastaba wuxuu ka cabsi qabaa in camalkiisa la aqbali waayo wuxuu ogyahay wuxuu qasay wuxuu ogyahay wuxuu geystay waaladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajilah caaisha waxaa laga sheegaa inay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ma kuwa khamriga iyo wax tuugada iyo waxaa sameeyeyba maya buu yihi walaakinahum yasuumuuna wayusalluuna wayataصadaquun wahum yakhaafuuna anlaa yuqbala minhum ulaa'ika aladiina yusaaricuuna fi اlkhayraat inaad ka cabsato in camalkaaga la aqbali waayo waxaa keenaya waxaad ogtahay marka horeba ina ilaahay hani ka yahay horta daacadeenna o dhan waman yashkur fainama yashkuru linafsi waman kafar faina allaha haniyun xamiid
in takfuruu fain allaha غaniyu cankum walaa yardaa licibaadihi اlkufr wain tashkuruu yardahu lakum wman shakara fainama yashkuru linafsih wman kafara faina rabbi غaniyu kariim waqaala muusa in takfuruu antum wman fi lardi jamiica faina allaha laغaniyu xamiid. aayaadkaasoo dhamme waxay tilmaamayaan ilahay inuu hani ka yahay waxaaga oo dhan. waa kii xadiidka lqudsigii muslim warinaya nebigu lahaa calayh الsalaatu wasalaam yaa cibaadi inakum low haddaad dhammaantiin inta meel iswada taagtaan ninka idinku cibaado fiicana la mid noqotaan ilahay waxba ku kordhin maysaan. markaad ogaato marka cibaadadaadu inaanu alla u baahnayn waxaad ka cabsanaysaa in laga aqbali waayo. markaad ogaato ilaahay fadligiiba inay tahay waxa wax lagu aqbalaa waxaad ka cabsanaysaa in wax laga aqbali waayo. waa ka nebi moxamed le calayhi salaatu wasalaam qofna jannada kuma galo camalkii walaa anta markay yidhaahdeen ilaa an yatagamadanii allahu biraxmatihi buu tilmaamaya. wakhtigoo kooban daraaddeed waxaynu leenahay inaynu ogaanaa manno oo dhan gallad sheegasho oo dhan markaad ilaahay u qirto subxaana wa tacaala. faman yurid allahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam ilahay baa kuu gallad sheeganaya yamunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan. qolaa nebiga ugu manno sheegatay inay islaameen dabeetana ilaahay baa waxa uu leeyahay waxay kuugu gallad sheeganayaan inay islaameen. war waxba ha sheeganina ilaahay baa idinku mahad sheeganaya baa la yidhi maxay an hadaakum liliimaan. bale nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aanadii ugu horreeyay risaalada sheegayay culimmada qaar baa waxay sheegaan iqrana waa nebinimadii mudathirna bay yidhahdeen waa risaaladii. yaa ayuha almudathiru qum faandir warabbaka fakabir wahiyaabaka fatahir wاlrujsa fahjur walaa tamnun tastakthir walirabbika fasbir. ilahay wuxuu yidhi kan isduuduubay oo kac oo dig oo dadka khayrka u sheeg oo soco. laakiin maxaa la yidhi markii takliifkaa la saaray walaa tamnun tastakthir ha gallad sheeganin baa la yidhi adigoo badsanaya. waxaan aad qabanayso oo dhan waxaad ku gallad sheegata ma yaalina waa ilahay nimcadii subxaana wa tacaala. qofka mu'minkii wuu isdhiibayaa maadaama uu og yahay fitanka inaan qofna ka nabadgelin. walidalik buu nebi moxamed ku ducaysanaya ilaaha qalbiyada bini aadamka gagadiyow qalbigayga cibaadadaada ku sug. waxaan ku soo koobayaa cibaadadu marka waxay u baahan tahay laba shay inay hesho. ilaahay waxaa lagu caabudaa bima sharac wixii uu sharci ka dhigay. wax adigu aad iska samaysatay ama kula qurux batay ilaahay laguma caabudo. kaasi waa mid. waa midda labaad ee alla ku aqbalaana waxa weeyaan in cibaadada isaga loo kali yeelo cid kale inaad wax la wadaajinin subxaana wa tacaala. labadaas shay waa u shardi. dad oo dhanna waxaa la faray inay ilaahay caabudaan. waxa ugu dambeeyaan sheegayaa wuxuu yahay wixii cibaado aada u taqaano hayrullahi in loola yimaadaa ma bannaana. waxaa layna yidhi haddaa wax gowracaysaan ilaahay uun ku gowraca magaciisa isaga u gowraca. gowrac cid kale loo sameeyaa ma bannaana. salaad soon xaj wax kasta oo cibaado ah keligii in loola yimaado weeyaan. laba mafhuumoo gaf ah baa jira iyaguna dadka ku batay oo labaduba cibaadada saxa ay ka soo horjeedaan. mafhuum alcilmaaniya oo ah in ilaahay subxaana wa tacaala adduunka aan waxba laga siinin waa gaalnimo sida u taalla. waa aragtida tidhaahda masaajidda iyo meelaha islaamka ku haystee caqliga ragga iyo odayada iyo waxgaradka tooda ha la ysku maamulata tidhaahda. ilaahay haddaad adigu garanayso cid wax ka garadsan caabud. waxgarad alla dhaama haddaad og tahay isaga caabud. ilaahay cid ka xikmad badan haddaad og tahay iyaga caabud. ilaahay cid ka aqoon badan haddaad og tahay iyaga caabud. amaa haddaad rumaysantahay inuu ilaahay yahay huwa alcaliimu alkhabiiru alxakiim haddaad rumaysantahay inuu ilaahay cilmi badanayi oo waxaad u baahantahay u garanaya alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu alkhabiir aantum aclamu am illaah haddaad rumaysantahay inuu ilaahay xikmad badan yahy axkamu lxaakimiin inuu yahay
haddaad rumaysantay inuu ilaahay subxaana wa tacaala khabiir yahay oo sidii walaa yunabi'uka midlu khabiir laa yajuus noloshaada qayb ka mida inaad ilaahay hayrkii u keento marka la leeyahay cibaadada alle kor haddaynu nidhi noloshuba waa cibaado ina salaatii wa nusuki waa maxyaaya noloshaydaba ilaahay baa leh haddaad tidhi cid kale qayb ha u reebin war haddaad fooda dhulka dhigtay waa halkii kugu qaalisanayd haddaad aqbashay halkaad kabaha ku haysay inaad wejiga saarto guntintan dambe haddana kuu guntana la yidhahda reeraha talinaya maxay tahy waa laba iswaafaqin imaa salaadaanad fahmin nin wejiga dhulka ku hayo haddana le qolo kale aynu yaraa tooda ku dhaqmaynaa oo halkanna waynu tukanaynaa waa nin waalan yani xataa caqliga caadiga haddii lagu eego u waalan yihi waayo waxay ahayd inaad sujuudda iska daysid haddaad ilaahay tiisa dhinac marayso amaa intaad aqbashay inaad fooda dhulka ku hayso oo ilaahay u sujuuddo subxaana wa tacaala haddana inaad tidhahdo qolo yaroo kalean arrimaha qaar ilaah u ka aqbalayna adigana madaxaanu dhulka kugu haynaynaa waa waxaan jirin idan cilmaaninimadu intay ku yeedhaysaa waa intaa adduun iyo aakhiro iyo waxaasi ma kala jiraan islaamku waa mid qura adduunkana ilaahay baa leh aakhiradana ilaahay baa leh biyadihi lmulk wa huwa calaa kulli shayin qadiir dunidanna isagaa ka taliya rabu samaawaati walardi isagaa keligii baa laga cabsadaa keligii baa laga dambeeyaa laa gaal walaa muslim walaa cid kaloo ay gacan ugu jirtaa ma jirto ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala hadday dhibi ku haysato isagunbaa ku itixaamay wamaa asaabakum min musiiba fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir hadday dhibi timi ilaahay baa ku itixaamay wuxuu kugu itixaamayna waxaad samaysay uun hadday nimca timaadana isagaa kugu galladaystay wamaa bikum min nicma famin allah wain tacuduu nicmat allahi falaa tuxsuuha idan cilmaaninimo kuma jirto diinta suufinimada nooca kanina kuma jirta oo ah did lcilmaaniya adduunka qoladaasaa iskale ba yidhahdeen inagoo aakhiraynu leenahay waar adduunka iyo aakhiraba isagaa leh alle subxaana wa tacaala adduunka iyo aakhiraba isagaa leh alle subxaana wa tacaala idan labada madhabba waa baatil labaduba waxaad moodaa inay adduunka ilaahay ka fogeynayaan adduun iyo aakhiraba waxaynu u baahanay inaynu alle ku caabudno oo wax allaaliya wixii camal aynu la imanaynaa ha weynaado ha yaraado ilaahay wuxuu inoo ballan qaaday inuu inoo guulaynayo waa shardi bay ku xidhantay waa maxay yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastaklifanahum fi lardi markii alle soo tilmaamay waxaa shardi looga dhigay yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya idan ikhwatii fi lcaqiida dariska kani haddii mawduuca mu'tamarkani uu ahaa tagyiir waxaan leenahay tagyiirku qalbigu ka bilaabmaa qalbigaa haddaad ilaahay u hogaamisid oo alle cabsidiisu ay degto iyo tala saaradkiisu iyo ku kalsoonidiisu jawaarixda ama jidhka intiisa kale waxaa ka soo fula waa cibaada uun jidhka intiisa kale waxaa ka soo fula waa cibaada nabiguna uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadduu boqorkaasi islaaxo aha qalbiga qofka bini aadamka ahi jidhka inta kale wuu islaaxaa hadduu qalbigu aqbalo inuu hogaansamo kibirka dhaafo ilaahay fooda dhulka ugu hayo awaamirtiisa iyo nawaahidiisa si toosa u qaato noloshoo dhan baa islaaxaysa bashariyadu marka waxay hoogtoo jabtay luntayoo ba'day baaba'dayoo aasantay markay ilaahay dhinac martay subxaana wa tacaala haddii la rabo adduunka kan waxaa dhib iyo halaag haysta in laga saaro adduunka oo dhan muslim qura kama hadlayo adduunyada waxa balaayo ka taagan haddii la rabo in laga saaro waa in loo saara inay ilaahay addoommo u noqdaan iyaguna aanaysa addoonsanin wallahu aclamu billahi towfiiq wasalaamu calaykum